kulanka wadatashiga bulshada iyo hogaanka gobolka Banaadir waxaa toddobaadkan lagu qabtay degmada Hodan ee gobolka Banaadir si loo dhageysto baahiyaha ka jira iyo haddii ay jiraan waxyaabo ka dhiman degmada oo uu maamulku gaabiyay. waxaana ka qayb galay kulanka kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir Mudane Axmed Xasan Iimaan, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka Banaadir Maro Basma Caamir Axmed Shakeeti iyo gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Dhagajuun iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee degmada ku nool. madasha waxa ay reer Hodan ku soo bandhigeen kaalimo suugaaneed oo ka turjumaya horumarka degmada iyo dhaqanka Soomaalida. hadalka waxaa qaatay odayaasha dhaqanka degmada iyagoo markii hore ku bogaadiyay maamulka gobolka Banaadir furista wadada xiriirisa isgoysyada kilomitir 4 iyo Tarabuunka oo muddo 10 sano ka badan xirneed. wadooyinka xaggooda ka haystay fursadaha la bixiyay ee wadooyinkii qaybo ka mid ah la furay. waxaan rabaa guud ahaan maamulka gobolka Banaadir, maamulka degmada iyo xukuumadda intaba inaan uga mahad celino tallaabadaas. sidoo kale waxaan rabaa inaan kuna bogaadiyo shaqadaas maamulka degmada ee hadda noo shaqeynaya. gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Dhagajuun ayaa sheegay in reer Hodan ay door muuqda ay ka qaateen bixinta canshuurta iyo horumarka gobolka Banaadir, balse dadka ay sugayaan bedelka canshuurta ay bixiyeen. waxaa ku yaala ama waa meelaha magaalada istiraatiijiga ay ku taala, waa townkii magaalada Muqdisho aan dhihi karnaa ama gobolka Banaadir, waa meelaha ama isbitaalada, iskuulada, jaamacadaha, hoteelada, wax walba ugu wanaagsan meesha ku yaalin waaye degmada Hodan. maamulka gobolka Banaadirna runtii waa ogyihiin degmada inay muhiim u tahay. waxaan aaminsanahay labadii bil ee la soo dhaafay ama saddexdii bil ee la soo dhaafay degmada dakhliga ugu badan u soo xareysa maamulka gobolka Banaadir inay tahay reer Hodan. marka waxaan rabaa shacabka reer Hodan ee halkan fadhiya canshuurtii laga qaaday luuq kuma aysan leexan, waa la idinkaga mahad celiyay. meel official inay degmada Hodan number 1 tahay saddexdii bil ee la soo dhaafay. waxaan rabaa kale in gudoomiyaha gobolka nooga jawaabi doono kusimaha gudoomiyaha gobolka nooga jawaabi doono su'aalihii la weydiiyay. anaga ka maamul ahaan hore ula wadaagnay waraha iyo wadooyinka burbursan dhammaan. kulli anagana doorana saarnaa doono ah inaan qayb ka qaadano. dadka deegaanka ee kulanka wadatashiga bulshada iyo hogaanka gobolka ayaa su'aalo u badan dhismaha wadooyinka iyo waliba xal u helista warta Siigaale waxa ay weydiiyeen kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Mudane Axmed Xasan Iimaan. waxa uu ugu jawaabay sidan. ka jawaabo su'aashii ugu horeysay waxay ahayd maareynta warta Siigaale. arrintaas xilli fiican aan nimid oo jawaabteeda aan idin hayno. waxaan arrintaas aan rajeynaa muddo mar dambe inaan isweydiin oo iyadoo xalisan aad arki doontiin haddii alla idmo. waa mahadsantiin. warta Siigaale waxay ku jirtaa qorshaha noogu jirtaa. dhowaan waxaan rabnaa inaan xal u helno oo aan ka xalino heer Hodan bismaahine bilicdana xataa waxbay u dhibtaa iyo caafimaadka. sidaas darteed waxaan rabnaa inaan xalkaba dambaysi ka gaarno, waana laga gaaro qorsheedii waa dhammaaday. fulinta unbaa noo dhiman, mar dhowna waa fulaynaa haddii alla yidhaahdo. taas warta halkaas inuu gudbaa arrinkeedu waa xalisan yahay insha Allah. halkeedina waa la diyaariyay. waxaa ku xigtay su'aashii kale uu weydiiyey wiilkii hadlayay magaca dhalinyarada oo la xiriirtay xagga shaqo abuurka haddii aan qaldanayn. jaamacado badan ayaa ku yaala la yiri meeshaan, marka dad badan ay soo saaraan. sidaas darteed maamulka gobolka Banaadir maxaa uga go'aansan dhalinyaradaas oo qalin jebisay oo faraha badan. sida la socotiin horta dhammaan dalka oo dhan ay ka jirtaa shaqo la'aantu. halkaana waa ka jirtaa. halkan waxaan ku nool dad fara badan oo lagu qiyaaso 3 milyan iyo bar. 3 milyan iyo bar dadka dhalinyaraduna ay ka yihiin 75%. beryahan dambana dhalinyaradu waa baraarugsan yihiin waxbarashada aad u aadaan.
dad badan soo qalin jabiyey waxaa loo baahan yahay shaqo abuur fara badan maamul ahaan arrintaas waa ku baraarugsannahay aad iyo aadna waa u jecelnahay inaan sameyno shaqo abuur fara badan ibraahim xaaji yuusuf warbaahinta gobolka banaadir magaalada muqdisho.